الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت معنا ونقصن داود الملك صوم مقالك يا مقالك بدك سوقار يا ولكن وتي في قناة حبنان يا برشتي في حبتيسا مقالة هرقيسا داود وحنا سوقنا حين قلدي سوق من سنوار ذلك وديهيسا iyo dibadiisa habeen kan caawa wixii naga soo gaaray gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan ayaa fadhigiistii 40aad ee golaha guurtida Soomaaliland maanta ka jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa taasoo ay kamid ahaayeen doorashada golayaasha deegaanka ee dhawaan la filayo inay dalka ka qabsoomaan dagaaladii dhawaan ka dhacay kiilka shanaad ee dalkaasi Itoobiya isagoo madaxweynaha dalka Soomaaliya hambalyo u diray gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan ayaa fadhigiistii 40aad ee golaha guurtida Soomaaliland maanta khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka horjeediyay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland taasoo ay kamid ahaayeen doorashada golayaasha deegaanka ee dhawaan la filayo inay dalka ka qabsoomaan ee dagaaladii dhawaan ka dhacay kiilka shanaad ee dalkaasi Itoobiya xisbiga mucaaradka u ciiday xaflad balaaran u sameeyay xubnaha ka soo baxay xisbiga kulmiye iyo qaar ka mid ah ururadii ay ku diiwaangelintu sheegeen inayna buuxeen shuruudii looga baahnaa inay kaga mid noqdaan ururada ka qayb galaya doorashada golaha deegaanka qaraxyo balaaran ayaa maanta ka dhacay bartamaha caasimadda Kaabul ee dalkaasi Afghanistan رئيسul wasaaraha dalka Pakistan ayaa sheegay in dib loo firi doono kiiskii musuqmaasuq ee ka dhanka ah madaxweynaha dalkaasi xiisada mudaharaadayaasha Shiinaha ayaa ka rusii kacaysa iyadoo oo gabi ahaanba la xidhay goobihii ganacsiga taawada intaas waa qaar kamid ah qodobada warkan ugu doorkroon iminkii haatan warkii oo fidsan gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan ayaa fadhigiistii 40aad ee golaha guurtida Soomaaliland maanta khudbad dheer ee ka horjeediyay oo dhinacyo badan taabanaysa taasoo ay kamid ahaayeen doorashooyinka golayaasha deegaanka ee dhawaan la filayo inay dalka ka qabsoomaan ee dagaaladii dhawaan ka dhacay kiilka shanaad ee dalka Itoobiya suufafaynta warkaasi noogu eegayo wariye Cabdiraxmaan Xirsi Kaahin ilka case kalfadhigiistii 40aad ee golaha guurtida ayaa maanta si rasmi ah uga furmay xarunta golaha guurtida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kalfadhigan oo ay ka soo xaadireen 60 mudane oo ka tirsan golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland kalfadhigan oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha guurtida Salebaan Maxamuud Aadan ayaa waxa uu ugu horeyn kaga hadlay doorashooyinka golaha deegaanka ee foodayna ku soo haysa waxa kale uu ka hadlay gudoomiyaha golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan dagaaladii ka dhacay dalka Itoobiya gaar ahaan kiilka shanaad gudoomiyaha golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa hadaladiisii waxa kamid ah sida tan waynoo socdeen iyadoo xukuumaddu hogaaminaysa wada hadallada labada xukuumadood wada hadal fiican buu ku hadlay aniga aragtidayda hadal kooban hufan buu ku hadlayo oranaya Soomaaliland waxaan ku wada dhaqmaynaa siyaasad iyo wada hadal baan ku dhaqmay insha Allah taa xashireed way naga qaboobiyo insha Allah buubuurinaynu mayno inaynu ka hawlgallo wixii awood iyo afkana ku darsano waa lagama maarmaan ilaahay way naga qaboojiyo xisbiga mucaaradka u ciiday hotel ambassador ee magaalada Hargeysa xaflad balaaran u qabtay xubnaha ka soo baxay xisbiga kulmiye iyo xubnaha kamid ah ururadii ay ku diiwaangelintu sheegeen inay buuxeen shuruudihii laga mid noqonayay inay ka qayb galaan doorashada golaha deegaanka kuwaasi oo sheegay inay si rasmi ah u biireen xisbiga mucaaradka u ciiday suufafaynta warkaasi noogu eegay wariye Cali Mahdi Jibriil Xasan xisbiga mucaaradka ee ciidaya maanta xaflad ballaaran oo soo dhaweyn u sameeyay xubno sarsare oo ka tirsan xisbiga kulmiye iyo qaar kamid ah urur siyaasadeedadii hadhay kuwaas oo si iskooda ugu soo biiray xisbiga mucaaradka ah ee ciida munaasabaddan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay waxa ka soo qayb galay musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga ciid mudane Jamaal Cali Xuseen gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbigaasi iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka saddexaad madaxa baratakoorka ee
xisbigaasi UCID gudoomisooyinka garabada haweenka iyo laamaha kala duwan ee heer gobol iyo heer degmo ee xisbigaasi UCID iyo waliba marti sharaf kale oo tiro badan ugu horeyntii madaxa barakoolka ee xisbiga UCID Mudane Cali Mahdi oo halkaasi ka hadlaya si aad u soo dhaweeyay dhammaan dhalinyaradii iyo waliba haweenkii ku soo biiray xisbigan UCID waxaana uu hambalyo ballaaran u diray hormuudadii labadan garab oo uu sheegay inay wax fiican sameeyeen isla markaasina ay haboon tahay waxaana ugu baaqay dhalinyarada kale iyo dadka kale iyagu ku jira xisbiyada kale inay ku soo biiraan gartaan xisbiga aqoonta cadaaladda iyo waliba daryeelka ee UCID waxa kale oo isna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyaradii iyagu ka soo baxay ururka Nasiye oo sheegay in ay iyagu garteen markii ay maskaxdooda maaleen in aqoon-yahanka dalku u baahan yahay uu yahay xisbiga UCID qaar ka mid ah mudanayaasha golaha dhexe ee xisbigaasi kulmiye oo iyaguna ka soo baxay xisbiga kulmiye ayaa iyaguna goobtaasi ka hadlay mas'uuliyiintii ka soo digartay xisbiga kulmiye iyo urur siyaasadeedka Nasiye ee madashaasi ka hadlay ayaa hadaladoodii waxa ka mid ahaa gudoomiyaha saddexaad ee xisbiga UCID Mujaahid Cali Gure oo madashaasi ka hadlay ayaa isna si aad u soo dhaweeyay dadkani waxaana uu uga mahadnaqay sida ballaaran ay isku soo abaabuleen iyo garabka ay siiyeen xisbigooda UCID waxa ugu dambeyntii isna madashaasi ka hadlay musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga UCID aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen waxaana uu mahadnaqaas la mid ah u diray dhammaanba dadkii iyagu gartay in ay ku soo biiraan xisbigiisa isla markaasina ay taageeraan waxa uu sidaasi la mid ah ka codsaday dhalinyarada reer Somaliland in ay taageeraan garabna istaagaan xisbiga UCID waxa kale oo baaq u diray guud ahaanba bulshada kuwaas oo soo jeediyay inay ka fogaadaan qabyaaladda isla markaasina maanta doortaan ninkii ku haboon jagada hanashada madaxtinimada ee dalka kaas bay yiri oo aanay u eegaynin hab qabiiliya waxaana hadaladii musharaxa ka mid ahaa sida tan xaafadda Sheekh Madar ee ayaguna halkan joogay waxa kale oo halkan joogay qayb ka mid ah ururka Nasiye ee dhalinyarada oo khayraad ay hogaaminaysay iyo dhalinyaradii kale ee la midka ahaa ururkii ardayda ee ka yimid Arabsiyo Xamda Aadan iyo gruubkoodii iyagana dhammaantood kulligiina aad baan idin salaamay salaan sharaf leh oo kalgacal leh oo soo dhaweyn leh oo badnaan leh ayaan idin soo dhaweynay marka labaad waxaan halkan idinka bayaaminayaa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka iyo sidii hore hadalka loogu dhameeyay waa xisbi u heelan in soo dhaweeyo dhalinyarada ayuu dareemayaa mowqifkooda dhalinyarada ayuu dareemayaa dhibaatada haysa annagu intii taalka iyaga ah xooga ayaan xagga dhalinyarada saarayna dhalinyaradu waxaan ognahay iyo haweenkuba inay yihiin 70% ama 80 inta codaysa ee soo saarta xisbi kasta iyo dawlad kasta oo ka dhalata Soomaaliland waxaan moodaa in lagu guuro marka dambana laga guuro waayaan darban leh runtii in iyaga la eego oo mowqifkooda la eego oo arrimahooda la eego way dhalinyaradu waa laf dhabartii wadanka waxaan sugayaa wadanku in dhalinyaradu ay noqoto ta wadanka majaraha waysa qofka dhalinyarada haddii aan laga shaqaysiin oo aan wadanka u shaqayn wadanka sidee buu horumar u gaaraya aqli baa loo baahan yahay Somaliland waxaad moodaa xukuumaddii hore ee dhibaatooyinkii laga sheeganayay isbedel weyn oo aan ka filinay inaanay weli aanu meel dhalin weli waxaad moodaa inaynu halkeenii joogno halkeenii isla jaan qaadayno ku jabsi weli aynu ku jirno dhibaatooyinkii laga filanayay ee xukuumaddii hore lagu eedeyn jiray in halkan ay ka muuqato cabrin fara badan dadkii la cabrinayo weliba gudoomiyaasha gobolada qaarkood kulligood yaana eedda wada saarin qaarkood
inaan noocii gaangis wararka aanu caalamka idinka haynana waxaa ka mid ah qaraxyo ballaaran ayaa maanta ka dhacay bartamaha caasimada Kaabul ee dalkaasi Afghanistan si faahfaahinta warkaasi noogu eegayo wariye Maxamed Cabdullaahi Cumar qarax xoogan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa maanta ka dhacay jidka madaarka caasimada degmada 15 ee bartamaha magaalada Kaabul ee dalkaasi Afghanistan kaasi oo galaaftay nolosha in ka badan 12 ruux iyo dhaawaca qaar kale oo badan sidoo kale waxa la sheegay in qaraxaasi galaaftay goobo badan oo ganacsi qaraxan ayaa la sheegay in laga soo horjeedo filim lagu aflagaadeynayay diinta islaamka iyo nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee la taliyaha ciidamada booliska ee magaalada Kaabul ayaa sheegay in ruuxa isqarxiyay uu bartilmaameedsaday goob dadku iskugu yimaadaan Ra'iisul Wasaaraha dalka Pakistan ayaa sheegay in dib loo firi doono kiiska musuqmaasuq ee ka dhanka ah madaxweynaha dalkaasi si faahfaahinta warkaasi noogu eegayso wariye Samir Abdurrahman Liban Ra'iisul Wasaaraha dalka Pakistan Musharraf ayaa sheegay in dib u firi doono kiis hore loo haystay madaxweynaha dalkaas Asif Zardari oo loo haysto lacag badan oo musuqmaasuq ah oo dhigtay bangiyo u yaala dalka Switzerland Ra'iisul Wasaaraha ayaa maalintii Salaasada maxkamadda horteeda ka qirtay in dib loo bilaabi doono kiis ka dhan madaxweynaha dalka oo bilaabmay horaantii sanadkan aynu ku jirnaa 2012 iyadoo ra'iisul wasaare Ashraf ugu baaqay dawladda Switzerland inay baaritaan ku sameyso lacagaha loo haysto madaxweynaha dalkaas madaxweyne Zardari ayaa sanadihii 90-yadii xidhay iyadoo loo haysto arrimo musuqmaasuq iyo isdabamarineed isagoo dhinaciisana iska fogeeyay inuu ku kacay falkaas xiisada mudaharaadayaasha Shiinaha ayaa cilka isku sii shareeraysa iyadoo oo keentay in gabi ahaanba la xidho goobaha ganacsiga suufafaynta warkaasi mar labaad inoo eegayo wariye Cabdiraxmaan Xiskaan ilka case mudaharaadayaasha dalka Shiinaha ayaa keenaya in albaabada loo xidho shirkado badan oo laga leeyahay dalka Japan sida Toyota Yamaha iyo qaar kale oo kamid ah shirkado badan oo ka jira dalkaasi geesta kale labada dal ayaa mid waliba dhankiisa maraakiibta dagaalka u diraya jasiiradda muranka badani ka taagan yahay ee ku taala xeebta bariga dalkaasi Shiinaha mudaharaadayaasha ayaa ah kuwa ka soo horjeeda dawladda Japan kuwaas oo bartilmaamsadaya hoteelada Japaaniiska iyo dadka ku nool dalkaasi Shiinaha dhinaca kale ciidamada booliska ayaa isku dhacyo xoogani ku dhaxmareen banaanbaxayaasha cadhaysan guud ahaanba dalkaasi Shiinaha haddaba xidhitaanka shirkadahaasi ayaa keenaya inuu hoos u dhaco weyn ku yimaado xidhiidhka ganacsi ee u dhaxeeya labada dal ee gaadhaya 2600 oo milyan oo euro guud ahaanba dhaqaalaha wadamada qaaradda Aasiya ayaa hoos u dhac ballaaran ku yimid warkii oo daawada kala socotay TV-ga madaxa banaan ee Bulsha TV xaruntiisa magaalada Hargeysa habeenkan caawa wanaagay taasi warkan xigeentoon mar labaad wadi ugu kulmino aniga asxaabtii kale ee tabinta warka ay kala qayb qaadatayba waxaan ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh